madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa in uu maalinta berri ee Khamiista ah khudbadiisii sanadlaha ahayd ka horjeediyo aqalka baarlamaanka ee dalka isagoo arrimo badan uga hadli doona. Dastuurka u yaala dalka ayaa dhigaya in uu madaxweynaha sanadkiiba hal mar khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyo baarlamaanka oo ay xaadir ku yihiin xildhibaanada. Mas'uulka ugu sarreeya dalka ayaa marka uu khudbadan jeedinayo waxa uu aalaaba uga hadlaa waxqabadkii dawladdiisa ee sanadkii la soo dhaafay isagoo ka dhawaajiya ajandihiisa sanadka soo socda iyo qorshayaasha uu ka leeyahay aqalka sharci dejinta. Mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxa ay guud ahaan tiradooda ka kooban tahay 418 xubnood, kuwaasi oo 136 ka mid ah ay yihiin garabyada mucaaradka. Ilaa 150 iskuul oo ka mid ah iskuulada ay dawladda maamusho ayaa la filayaa inay horaanta bisha May ee sanadkan helaan kombiyuutarada gacanta ee loo yaqaano laptopyada, kuwaasi oo uu qorshaha yahay in loo qaybiyo ardayda wax ka barata fasalada koowaad ee iskuulada dalka. Kowda bisha May ayaa markii ugu horreysay iskuuladaasi la gaarsiin doonaa kombiyuutarada, waana wejigii ugu horreeyay ee mashruuca laptopyada oo in muddo ah soo jiitamayay. Wejigan koowaad ee qaybinta laptopyada ayaa waxaa mid kasta oo ka mid ah 47 county ee dalka looga soo xushay 3 iskuul, iyadoo ay barbar socdaan 9 iskuul oo kale oo ah kuwa ay wax ka bartaan ardayda naafada ah. Iyadoo uu isa soo tarayay walaaca ay wadooyinka xiran ka muujinayaan dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa waxaa arrintan ka hadlay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee maamul goboleedkaasi. Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa amar buuxa ku siiyay ciidamada in ay sahlaan isu socodka dadka iyo gaadiidka, isla markaana ay si dhaqso ah u furaan dhammaan jidadka xiran. Sidoo kale Shariif Xasan ayaa ciidanka ugu baaqay inay xoogaga Al-Shabaab ka saaraan deegaanada ay uga sugan yihiin gobolka Koonfur Galbeed, kuwaasi oo deegaanada qaarkood go'doon geliyay. Waddanka Myanmar oo sidoo kale loo yaqaano Burma ayaa markii ugu horreysay maanta loo dhaariyay madaxweyne rayid ah kadib markii uu dalkaasi muddo 56 sano ah ka jiray xukun militari oo adag. Munaasabad saaka ka dhacday aqalka baarlamaanka ee dalkaasi ayaa xilka loogu dhaariyay madaxweynaha dhowaan la soo magacaabay ee waddanka Myanmar, Hitin Kyaw. Hogaamiyaha xisbiga talada haya ahna siyaasiyad si weyn ugu ololeysa dimuqraadiyadda, Aung San Suu Kyi, ayaa iyadana loo dhaariyay xilka wasiirka arrimaha dibadda, waxbarashada iyo tamarta ee dalkaasi. Koox u dooda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay magaalada Hebron ee daanta galbeed ayaa dalbatay in xukuumadda Israel ay ciidamadeeda kula xisaabtanto dilkii ay dhowaan u geysteen nin Falastiini ah oo aan xilligaasi hubaysnayn. Ururkan ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta Israel inay cadaalad u sameeyaan wiilkaasi oo ay si ula kac ah ciidankooda rasaasta ula dhaceen. Muuqaal si weyn loo shaaciyay muddooyinkii dambe ayaa lagu arkay ninka dhalinyarada ah oo uu askari ka tirsan ciidanka Israel tooganayo isagoo dhulka yaala oo aan halis ku ahayn, isla markaana ay sahlan tahay in la soo xiro. Ninkaasi oo la dilay horaantii bishan Maaj ayaa lagu magacaabi jiray Abed Al-Fatah Yusri Al-Sharif oo ay da'diisu ahayd 21 sano.